رئيس وزراء Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa bartamaha magaalada Barawe wuxuu kula hadlay maamulka Koonfur Galbeed iyo shacabkii ku soo dhaweeyay magaaladaasi. wuxuu sheegay Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in dadka reer Barawe ay helaan nabad, cadaalad, sinaan iyo hanaan dawladnimo oo dhameystiran taasi oo la gaarsiinayo dadka reer Barawe iyo dhammaan guud ahaan gobolada wadanka Soomaaliya dadka ku nool. Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu sheegay in magaalada Barawe ay tahay magaalada oo ka dhoofay sanadku markuu ahaa 1989 markaasi oo wadanka ka baxay. wuxuuna sheegay inuu maanta ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto magaalada Barawe. dadka ayuu ku baraarujiyay inay la shaqeeyaan howlgallada ciidamada xoogga Soomaaliya ee ka wadaan guud ahaan gobolada wadanka Soomaaliya. Raiisul Wasaaraha ayaa sheegay in socdaalkiisu oo qayb ka yahay howlgelinta ama dhiirigelinta ciidamada xoogga Soomaaliya iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi Barawe. madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu yimaado magaalada Barawe oo qayb ka ah deegaanada hoostaga maamulkiisa. wuxuuna sheegay Shariif Xasan Sheekh Aadan in maanta ay farxad tahay in asaga iyo wafdi ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Barawe. qaar ka tirsan waxgaradka iyo qaybaha duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Barawe ayaa waxay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin imaanshaha wafdiga Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ee magaalada Barawe. Raiisul Wasaaraha ayaa ugu dambeyntii wuxuu tilmaamay in degmada Barawe ay sii joogi doonaan qaybaha kala duwan ee ciidamada isla markaana looga baahan yahay shacabka in ay ka qayb qaataan dagaalka lagu xoreynayo guud ahaan wadanka Soomaaliya. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hon Cable TV, magaalada Muqdisho.